madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tababar u soo xiray kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwaasi oo soo dhameystay tababarka aasaasiga ah ee ciidanka kadib muddo ku dhow hal sano oo ay tababar ku qaadanayeen deegaanka Xananbuura ee gobolka Galgaduud. ciidankan oo laga soo qoray dhammaan gobolada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa noqonaya ciidamadii ugu badnaa ee tababar heerkan ah ku qaatay gudaha dalka tan iyo burburkii dalka, iyaga oo qaatay duruus iyo tababaro ciidan oo dhammaystiran kuwaas oo ku saabsanaa xirfadda ciidanka, anshaxa iyo xeerka ciidanka, xeeladaha dagaalka iyo aqoonta lagama maarmaanka u ah gudashada waajibaadka qaran. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay in ciidamadani ay astaan u yihiin soo kabashada dowladnimada iyo dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, maadaama markii ugu horeysay kumanaan askari ay ku qalinjabiyaan dugsi ciidan oo ku yaalo gudaha dalka, iyagoo si rasmi ah ugu biiray safarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ciidamada kula dardaarmay in ay ilaaliyaan anshaxa iyo sharafta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, dhowraan midnimada iyo qarannimada dalka, eena waajibkooda u gutaan si daacadnimo, wadaniyad iyo mas'uuliyad leh. munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi, wasiirka howlaha guud, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, maamulka gobolka Galgaduud iyo kan magaalada Dhuusamareeb iyo mas'uuliyiin kale. wixii maanta munaasabadan ay mudneed taliyayaashii iyo mas'uuliyiintii halkan ka hadlay ayaa runtii aad iyo aad wax badan uga bixiyey. waxaan rabaa oo keliya hal arrin oo aad iyo aad muhiim u ah xusideeda inaan halkan ka sheego. ciidan tababar loo soo xiraayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ah, dabley jadiid dhammaystay tababarkiisii oo loo soo xirayo markii koowaad ee aan ka qayb gala ma aha. inta aan ka qayb geli jiray in badan oo ka mid ah wadamo dibadda ah iyadoo loogu soo xiraayo ayaan ka qayb geli jiray. Afrika iyo Asia iyo Yurub meel aan ciidankeena xoogga dalka Soomaaliya lagu soo tababarin oo anigana aanan ka qayb gelin ma jirin. oo inta maanta halkan aad ka samayseen oo iyo in lamida uu la sameynayay. waxaan rabaa markaa in ciidan tiradiisa intaan la eg tahay maanta tababar loo soo xiraayo waa guul weyn, laakiin waxay uga sii dhadhan badan tahay oo uga sii macaan badan tahay in ciidankaasi Soomaaliya gudaheeda macallimiin Soomaali ah, xoog iyo caqli iyo xoolo Soomaaliyeed, in ciidanka intaan la eg maanta lagu tababaray, lagu qalabeeyey, lagu soo saaray oo ay ku biirayaan xoogagii hore u soo jiray ee xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan. taas waaye midda dhadhanka gaarka ah iyo macaansiga gaarka ah iyo maxaanka ku faanida gaarka ah midda mudan waa taas. hal midaa ka dhiman oo adinka idinku xiran dhalinyaro inaad intaa aad ku dartaan oo ah alla ilaahay ciidankii gudaha lagu tababaray iyo maxaanku yiraahdaa xooggii iyo caqligii Soomaaliyeed ee la geliyay waa ka muuqdaa in la idin yiraahdo oo cadowgu oo dareemo wiilka Soomaaliga ee Soomaaliya gudihiisa lagu tababaray iyo awoodiisa intay la egtahay. aanu isdhayn kuwan Soomaaliya lagu soo tababaray maxay yihiin, maxay tahay iyo inaan la dhihin markaan dibadda ugu soo tababari jirnay waa kuwaas waa fiicnaa general bal eeg wixii annaga tababarana ay lahaayeen inaan la dhihin. macnaheedu ma kuwii dibadda lagu soo tababaray inay xumaayeen. runtii aad iyo aad ayay u qiimi badnaayeen, waana ciidankeena maanta noo jooga intiisa badan waaye. wadamadii na garab istaagay ee kaalmadana siiyana aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin, ka abaaldhici mayno waa mahadsan yihiin. wax aan cid walba aanay na sii karin ay na siiyeen waa ka mahad celinaynaa, aaday u mahadsan yihiin. laakiin wiilku ama cunugu markuu dhasho, markuu istaagayo geeduu qabsadaa, derbiyaduu qabsadaa, markuu socod baranayo gacantaa la qabtaa, daadaha la yiraa. laakiin marka dambe isagaa socdo oo orda sow maaha.
وسوق قبصنا الدربية إيجادها داده وانا لسويري ما أنت وحب بلابت مركي كلجين أن أردي لهن أو أن سعولهن بلابت وحاربنا صعد كاسي أرض بدن أو حول دار إنه كحيجه وحاربنا إن نجارنا مال كوكله ظروفها أن كصوب مرنا يكون أن كجلو كلا كجرا إن داده ده كرنا أن جنا مركينا أيانا لجربها برية دياليرا وعن روتي أن آدي أبوغادينيا وماد علينيا إن هلكا كسي وضعنا أن كل رجلينيا وزارة الجاشان دقة هي تلس كعيدا كحوق دلك الصوماليين الدنيا تلس كحوق بودهان عيدا كبلوكا تلس كتابركا هي تلسيدة كالدوان عيدا كحوق دلك الصوماليين ودمان نبقى يبقوا كلها سيجار والله قد وضع دواجي جنرال خالد أيان أبو قادين إياه عوائي عصر حردان باهيدي إذا وحير أنا يكبر لونين ولي هدانه عوائي مالين نينكا نرد بجوغي أو الباب كنو قراعي أو حردي انت أنا أبانتا انت أنا كدم مكان أبانتا وروحا لما هلي كرأنيهو بل waxaan waxaad meel siiga gaasay waxa maanta xeradan ka muuqda iyo waxa ka dhacay iyo maxaan ku raadayay wixii la geliyay waxa aad iyo aad u ballaaran oo u weyn yaani waxa maanta ka muuqda aad u weyn hanti badan lama gelin laakiin aqli badan daacadnimo badan dadaal badan oo taliska guud ka soo bilowdo ciidamada talisada kala duwan soo maro oo xeradan qaybaha soo maro xeradan soo gaaray iyo taliskeedii iyo macallimiinteedii iyo maxaan ku yiraahday ciidankeedii intaba runtii markii Soomaali ay isku tashato wada dadaasho u guntato in ay ka miro dhaliso baahideena waxa aan helaynaa noo soo baxaya waa waxa maanta na hor taagan oo ah wiilasha Soomaaliyeed ee jamhuuriyadda afarteeda gees laga keenay jamhuuriyadda afarteeda gees laga keenay ee xeradan isugu yimiday laakiin gobol kasta iyo degmooyinka inta badan jamhuuriyadda laga keenay oo qaarkood ka yimiday degmooyin iyo dhul oo cadowgu haysta xataa ka yimid oo ka soo lugay yaa tihiin horta saas u ogaada intaasaa ka koobantaan waxaan rabnaa dalka Soomaaliya waraa loo sheegay biyo sacbadaada looga aqbalayo xooggeena caalamku waa na kaalmeeyay saaxiibadu waa na kaalmeeyeen walaalaha caalamku waa na kaalmeeyeen laakiin waqtigeennii yaa la joogaa markeennii yaa aan mas-uuliyadda qaadi lahayn oo walaalaha na kaalmeeyo dhan waa mahadsantihiin aan dhihi lahayn u mahad celin lahayn maalmaha ka mid a ciidamada noo joogaay aan ubax qurux badan intaan siino oon xaflad u qabanna aan dhihi lahayn walaalayaal waa mahadsantihiin oo kuwoodii halkan ku geeriyoodo ayagoo Soomaaliya difaacayo Soomaaliya xoreyn dhintay aan xuskoodii iyo muxuu ahay xusidoodii aan muujin lahayn kuweena maxaan ku yiraahday shuhadada ahay kadib waxaan rabaa marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan meel ka soo joogo waxaan leeyahay hambalyo waxaa idinku soo kordhay xoog aan la dhayalsan karin waxaa idinku soo kordhay xoog ma aha tababar Soomaali gudaheeda in lagu tababaray kaliya muddadii ugu dheereed ee ciidan la tababarana tababar soo galay takhasusaad soo kala qaatay dadaal badan dheeri ah soo muujiyay aad iyo aad ayaan idin hambalyaynayaa idin bogaadinayaa idinkuna rajaynayaa dadaalkaas iyo guushaas halkan ka bilaabatay in Soomaaliya laga dareemo waxa aan rajaynayno idinka sugayno waa waxa garabkiina Allah galo Allah